ka hadlaynaa oo ay rabaan inay ka hadlaan xariga Cabdimaalig Muuse Coldoon oo runtii gashi iyo abaal fara badan kule dadka deegaanka Soomaalida haddana isagii dhibana ah oo ku xiran magaalada Hargeysa ayay waxay damiirkoodu siiyay oo ay garteen inay xariga inay ka xun yihiin ay muujiyaan ku soo dhawaada mudanayaal waxaan ku horeynaynaa محمد عبد الله جولاد محمد عني هيا محمد سورو بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وان دوهي سرهي كرو هذا لينير وان دوهي أنا وانكو السلام يا وحا كلون ربعين أن هلكنا هو السلام وقدره لما نمد الصوماليات نمد الإسلام كا حرمنا السلام سرهي وشهي أنا كهذا لما عبد المالك وانين متهستي وفكستو الصومالي هو الضمير له إنه كهذا سبتتاي وحي هاي بين نقين عبد المالك isaga lafiisa oo ma hadlayna xaq ku duuban yahay iyo cadaaladiisa iyo wixii uu soo qabtay iyo wax mustaqbalka laga fiirin baa u baahan in la iska rabtaayo Cabdimaalig xaq ku duuban yahay shalayna wuxuu u dagaalamayay dadka xorriyadiisa iyo xuquuqdooda iyo dadka dulman inuu codkooda kor u soo qaado dadka jahadu ka luntay jid waliba ka xidhnay buu jid u bixin jiray maanta isagii baa godkii galay waxaan u mahad celinayaa koow maxkamadda Hargeysa ee Murudshax oo sheegtay Cabdimaalig inaanu wax dambi lahayn sida aanu filaynay yeesh waxa kale oo iyadana rabaa inaan u mahad celiyo baarlamaanka qayb ka mid ah oo iyaguna ku dhiiriday Cabdimaalig inaanu cod inuu lahayn inuu wax dambi lahayn waxa kale oo iyaduna mahad saddexaad leh shacabkii ka xumaaday faraha badnaa ee Cabdimaalig inuu xaqdaro ku xidhay cadeeyay Cabdimaalig ma ahayn dambiile ma ahayn maxkamadda cadeysay dadkiisa cadeeyay annaga cadeynayna wuxuu ahaa samafale nin dadkiisa u heeliyo ahaa waxa maanta lagu haystaana waa cadaalad darro iyo inuu sheegay abaarso meesha la yiraahdo iskoolka abaarso waxa lagu dhigayaa inuuna wax Soomaaliyeed dana u ahayn la rabana mustaqbalka Soomaali meeshii laga soo gali lahaa inay abaarso tahay Soomaaliland waxaan oran lahaa haddaad laba qof oo ajnabi ah oo dhaqan xumo faafinaya aad ka hortagi weydaan caruurtiinii oo la baray baa ya ruux walba aqalka kugu soo gali gabadhaadii iyo wiilkaagii oo waxa ay dadkaasi soo dhoofiyeen xumaanta ay soo dhoofiyeen iyagoo wada oo nin walba wiilkaagii iyo gabadhaadii lagu soo xambaariyo oo mishiinkii laga bedelay oo wax weeyaan waxa ay dadkaasi soo dhoofiyeen wada ya aqalada idinku galaya waxaan leeyahay Somaliland shalay toole group team yar baa shalay idinka qaalib noqday groupkaasi waxa weeyaan anagu kolkaan halgamayna oonarag dad baa jiray ganacsi aan ahayn dheeman aan ahayn oo nagaday jiray ma ahayn dadka ma ahayn shacabka ma ahayn dawladda oo dhan ma ahayn dad tira yar buu ahaa dadka ganacsiga markuu dhamaaday baa waxa la bilaabay idinka dhexdiina in ganacsi leedinka bilaabo oo dadkii tayada lahaa oo Cabdimaalig ka yahay la bilaabo waxa lagu xigsiin culimada waxa garadkiina lagu xigsiin ganacsigana wuu bilaabmay Cabdimaalig baana ka in gudihiina dhexdiina laga ganacsado haddaad Cabdimaalig aynu ogolaano maanta inuu xabsiga ku sii jiro waxa weeyaan nin walba gurigaaga xaqdarada kugu soo gali adaa tooshka lagu daba qaadi adaa waxa heegi doonta iyadoo la yiraahdo masaajidada maxaa laga yiraahdaa wacdiga maxaa la yiraahdaa dadka caqliga leh sidee bay u hadlaan dadka Soomaalinimada raba ee Soomaalida ee mishiinka iyo awoodda iyo hanka Soomaalinimada intee meel hay joogaan iyadoo saalaydan ku ugaarsan baa bariimanay anigu waxaan leeyahay dad badan baa uu Cabdimaalig u kacay laakiin kuma filla maxkamadii way cadeysay inuu dambi lahayn laakiin kuma filla baarlamaankii baa sheegay dadweynihii baa kacay laakiin Cabdimaalig weli wuu xiran yahay xilkii shalay nasaaraba weli nasaaray Cabdimaalig haddaynu gamcaha isku duubano haddaynu dagaalano dagaalku ma aha inaynu xabad ridno maanta waxa lagu haystaa waa xaqdarrada inaynu ku hadallayno banaanka soo dhigno oo ilaahna waxa lagu haystaa ma xaq wuxuu sheegayna waa run waxa la soo dhoofiyena waa waxaan Soomaali u cuntamin waxbarasho ninkii doonayo inta dugsi baa ka furan tigtigi iyo muxuu ahaa iyo burci iyo berbera waxbaa jira wax meesha lagu qarinayaa jira maxaa looga cumaan ma la soo bandhigo la yiraahdo Cabdimaalig wax cad soo bandhigay wax caruurta loo dhiga ma la soo bandhigo haddaan wax la qarinayaa jira anigu waxaan leeyahay Cabdimaalig nin keligii ama waa nin jaha sax u socda ruuxa fiican walaalka
waxa damirkiisu fayow yahay wadada saxda ah haddaynu caawin weyno ku aan wada sax haynin baa gacanta nagu dhig cabdimaalig marka maanta heel buu u baahan yahay waxaa heel u baahan xaqa heel u baahan wax qabadkiisii iyo dadnimadiisii iyo kartidiisa yaa heel u baahan mishiinka saaran iyo awooddu leeyahay iyo soomaalinimadiisa iyana maanta xamar iyo hargeysa iyo tigtiga isugu mid tahay baa heel u baahan mishiin wax cabdimaalig waxaa saaran mishiin wadaniyadeed ku islaamnimo ku karti iyo wax in lagu caawiyo xaq uu leeyahay anigu waxaan leeyahay Somaliland maanta khaladkaad gasheen maydaan wada gelin khaladka uu cabdimaalig ku xiran yahay maydaan wada gelin team yar baa ayaa galay teamka haddaynu ogolaano inay wixii iska sii wadato kulli aqladay nagu soo wada gelin intay idinkaydu soo dhaaftay annaga jigjiga noogu iman doonta aynu u kacno walaalkeen aynu caawino xaqa aynu sheegno yaan hala dagaalama malihin laakiin xaqa hala sheego hala caddeeyo hala kaco fadhiga hala kaco odayaasha waxaan leeyahay waxgaradku ha kaceen culimadu ha kaceen ardada iskoolada ku jira iskoolada qumane xaq wax loogu dhigaa ha kaceen hooyooyinka iyo waxgaradku ha kaceen cabdimaalig aan soo dayno cabdimaalig ha loo gurmado cabdimaalig ha loo gurmado kuwa xaqdarrada ku haystana laga siiyay هيا عبد الله محمد دريسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تمركه هره وحن ربنا كفى يستهلكن شعب الصومالية لما أنت تميك الصومالية يعني سانك يلا وضع ملك استيو جنبه. وحن ربنا وكلنا محل عليو المحكمة قبل مرود الشيخ شاكتي عبد المالك سما فلح عبد المالك موسى الله إنه حق تهرك عليه قيسي وقان جيسين ملو في آخرتي ولقى في الله قاعدتي إيو شعب أمة الصومالية كحما هذا حركة عبد المالك أنت كبعد مركو هرو حرة أن الإله وقبر يوم ربنا عبد المالك وطول مكحر الإله كسيداي حبسك الإله حبسك كسيداي بس الإله وقبر هيا وأنا كررتشين الإله إنك عقبالي طول حيا لطول مكحر الله حرة مكررت أنا عبد المالك نسياسي مية ونسا مفرعة ونسا مفرعة وشعب أمة الصومالية ذاتك مسلمين كانوا يسوي فلان وهذا عبد المالك معه وعد بنياش وقرقاري كذا وهذا حرار أغانتي بربركي ذاتك عايبها يكون أمريكا أنت أمريكا لهين وقربين كذي وعوقا من كذي سيد الله حرار يجي واحد وكرنتي وأهلنا هذا حنو بدن وقف كستون مسلم أما قف كستون صومالي أو ضمير له أيدي بيس حرجة سما فلان عبد المالك وأنا الشعب الصومالي هذا اسمه مديهاي أنا الصومالي وشعب الصومالي أنا كلش علي والصومالي لو يدخل وحلو لو دي بهاي وحوي سيد صومالي أطاي سيد أبو جرجار ساتت كدبر وحوي ناكس سيد أركتا دين الإسلام كسيد فافنيسا محاضر لو أرك حساب كل عري وأكل كل عري أرنتها وحوي تعامل ساتت كالصومالي مسلم كدميكم متصورين تعامل حساب سيد الدرادات إن أي مرة والبضع أود يشان كوا ظلم الوضع ذاتك عدالة ولا قولنا هي الوايان وأهلنا السلطرة وولو إلهي نقول حسابتنا وحانا سلاح علماء وطنك الصومالية تشوت أريد أحبال لقوي دين دولك أقابلكم مطابقة يا برا معنا والبا وحال الحوتية وهي الحرة ذات ظلمها كشقية ذاتك الصومالية بالبرنا هي سياسيين تدنها قارك عليه كوي عدو يوم ذكر وشقين هيا كوا شقين كوا بنياشها dadkooda u sibafay jiray ee u naxariisin jiray ee Soomaalida ay ku weyneen maalba halkaas ku dhibaataysan sida darteed waxaan rabnaa waxaan isleenahay heelkar ay Soomaalidu hirta maanta libada Cabdimaalig heel ka badan buu u baahan yahay gurmad ka badan buu u baahan yahay garistaar ka badan buu u baahan yahay dhibka haystaan Soomaaliya oo dhan buu haystaa waxaan rabaa inaan Soomaaliya inuu sheego haddaad u maleysaan inaad Cabdimaalig haysaan Cabdimaalig ma haysaan waxa haysaan samafalay ummadda Soomaaliyeed ayaa haysaan oo dhibtaan inuu san wax dambi qabina maxkamadana waa cadeysay dadka Soomaaliyana waa cadeeyeen siyaasina ma waxa marka hadii ay wanaag yihiin dadka dulmiga iyo gaalnimada iyo balaayada wada ee laga keenay meelaha kale cudurada wada hadii cadaalad yihiin qofkii Soomaaliga ah ee dhibka ummadda Islaamka sheegayana oo dulminaya ma garanayo meelaha socotaan ma garanayo marka Soomaaliya magaco ummadda Soomaaliya hadda fiican runtii oo qiimo badan oo ka xanuunsaday qayb badan oo dawladda kamid ah iyo qayb siyaasiyiin qayb culimo laakiin qayb yar oo shaytan ummadda ku tirfariis maanta ku tirfariis jirta waxaan rabaa inaan xusuusiyo
shalayto koox waxaa jirtay isku xidhnay TPLF iyo maamulka Soomaaliland qayb ka mid ah Hargeysa joog oo ka ganacsan hilibka shacabka ummadda Soomaaliya oo ogtiin oo gadanaya gabdho yar yar oo masaakiina oo jaaridooyiya jaariyada iyo dad socota gadanaya qandaraaskii markuu dhamaado TPLF-na ay meeshii lagala wareegay xukunkii horena burburay ayaa hadda waxa loo foorarsaday kuwa u samafalay dadkii dhibku soo gaaray ee TPLF iyo xukuumadda hore ay dhibaatada u geysatay kuwa u samafalay ee kuwa dhimirkooda maqan yahay wax u qabanayay ee agoonta u gurmay wada ogtiin hadda Hargeysa goomaha agooma iyo dad baahan oo hadda maalmo dhaweyto wuxuu Cabdimaal u soo qabtay wax looga qabanayay wada ogtiin dadkii u dhaqdhaqaaqay ayaa laga bilaabayaa maanta arrintaana saameyn bay ugu yeelan doontaa marka waxaan dadka Soomaaliyeed dhammaantii meesha doonaa joogo inaga Soomaali waa sukaanimad weyn Soomaali waa Soomaali waxaan mar walba u hambalyeynaa dadka Soomaalida jecel Soomaali meel kasta ay joogaan kuwa Soomaaliland jooga iyo kuwa Kenya jooga iyo kuwa Koonfur jooga iyo kuwa Bari jooga iyo kuwa Galbeed jooga iyo kuwa Djibouti jooga dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay istaagaan oo kelgishaan xariga xaq darrada ah samafala Cabdimaalik lagu haysto inay ka istaagaan oo u heeliyaan sidaasaan ku baaqaya waxaan kala rabaa inaan madaxweynaha Soomaaliland aan ugu baaqaya inta wax ka badan ha ku sii hayno dulmi Cabdimaalik inta wax ka badan oo dulmi ha ku sii hayno maradii baa ka dhacday marada xiro ninkaas miskiinka samafalaha ee wax dambi oo qaba u sin jirin hal iska sii daayo xiradiisa loo sii daayo cadaalad ha helo intaasaan ku baaqayno ma haysanta